وحمانت جلنكي دنبه دegmada Celafweyn soo gaaray wafdi horkacayo wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya waxaana wasiirka safarkiisan ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha kalluumaysiga horumarinta reer miyiga agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo kalluumaysiga waxaana wafdigani soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay maamulka degmada Celafweyn oo horkacayo gudoomiyaha degmada Celafweyn ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Maxamed Cabdullaahi oo ka warbixiyay safarkoodani waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda Maxamed Cilmi Xuseen waxaana iyagoo arrimahaasi ka hadlay hadaladoodii kamida waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Celafweyn wanaagsan mas'uuliyiinta qaranka wasiirka kalluumaysiga wasiirka deegaanka iyo arigaba iyo agaasimayaasha kale ee halkan nala jooga intaba aad baan idinka mahadcelinayaa farxad bay noo tahay inaanu halkan idinku nimaadno oo aanu warbixinta idinka dhageysano dadka iyo deegaankana aanu aragno u kurgalno farxad gaaray aniga ii tahay waa markii ugu horreysay ee aan degmadan imaado dadkan oo aan u jeel qabay iyo deegaanka meelaan arko inaan maanta ay soo gasho aad bay farxad gaar aniga ii tahay waxaan waftigaygu aanu idinku nimid inaanu guud ahaan gobolka aanu kala qayb galno mandaqadanba sanad guurada 23aad madax banaanidii Soomaaliya oo aan filayo in aan xafladda ugu weyn ka dhacayso madaba aan idinka sidno daatiin degmada iyo guud ahaan gobolkaba aad iyo aadna waan ku mahadcelinayaa sharaf waxaan u soo nabad qofka soo gaarnay degmada Celafweyn oo aanu kala qayb galayno xuska 23aad ee 18 May farxad bay noo tahay inaanu kula iidno kula dabaaldegno dadweynaha reer Celafweyn qoryar waxaan dadweynaha u rajaynaynaa inay si nabadgelyo u dabaaldegaan una soo dhaweeyaan ugana soo qayb galaan una soo baxaan xuska 23 guurada 18 May aad baan u mahadsantahay assalaamu calaykum soo dhawaada degmada Celafweyn gacmo furan soo dhawaada idinku mahadsan inta ka bacdi xiro kooban dalka iyo degmada aad bay u fiican tahay xaaladda nabadgelyo aad waa 100% degmadu aad bay ugu diyaar garowday dabaaldega xuska 23aad ee sanad guurada 18 May أحمد محمد علمي تلفزيون عالمي Cable TV Celafweyn